بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا وحمادك الله سبحانه وتعالى الله صلى نسينا مثل الإسلام والإيمان. ثانيا وحنا كان ugu mahad celinaya walaalaha soo sadaqaystay raashin kan aad u jeedaan hortiin idin kaga muuqdo oo haaf bariis iyo haaf bur iyo haaf sokor ah iyo 5 kiilo baasad dheer ah iyo caag saddexle oo saliid ah iyo 800 oo shilin Soomaaliya. gurigan hadda aan joogno oo maanta idin kala soo hadlayno waa guri oo tacsiye ay taalo oo ilmahan hadda u jeedaan yararka ah waa hal gabar iyo 3 wiil oo cunug ugu yar oo jiro 4 bilood. marka hooyadoodii ilmihii ayaa geeriyootay ilaaha u naxariisto ilaaha ka jeclaaday. marka arintaana nala soo sheegay marka nala soo sheegay isla maanta anagana dadkii muxsiniintii warbixintii aan siinay isla maantaana laga soo jawaabay alxamdulillah oo raashinkan hadda hortiina idin kaga muuqdo aan ugu soo iibinay lacagta inta soo harteen 800 shilin Soomaali ay naqtayna waa u soo sarifnay oo waatana mid horteeda taalo. marka ilmahan oo 4 cunug ah oo 3 wiil iyo hal gabar ah mid kamid ah wiilasha uu xanuunsan yahay sida aabihiis oo ii sheegay wuxuu asagoo 2 bilood jira oo waxa lagu arkay qaybta dambe oo ka naqday paralysis oo ka naqday cunugeen hadda anaga indhihiina ugu jeedno saan ay tahay 2 sano jira sida aabihiis oo noo sheegay waana mana socon karo waayo qaybtii dambe dhan oo paralysis-ka dhulka uu ku jiida. marka asagana iska xanuunsan yahay dhaqaatiir in loo geeyo u baahnaayeen waayo hadda dhakhtaran u geeyna door wax dhakhtar uu geey malaan waayo ilmihiina waa hooyadooda rajo hooyadooda waa dhimatay asagana iska xanuunsan yahay oo wax waaye qof iska xanuunsan oo guriga joogo guri aan ka bixi karin waayo haddoo caafimaad qaba hataa oo wax waaye qof bixi kar ma waayo cunugan yara dhabtiisa saaran oo bilooyinka jira 4 bilood oo jira hooyadiis way dhimatay. ilmahan kale iyagana hadii aabahooda oo baxo oo ka tago qof maanta oo ay ku dhaafayaan oo haynayo oo asagana oo u soo shaqeysto ma lahan waayo fiidiyowyada aan soo duubayno oo dadka oo aan soo bandhigayno oo dhibaataysan mid ka mid oo noogu murugo badan ma arkin wax waaye ilma hooyadoodan dhimatay aabahoodana xanuunsan oo guriga isla joogo oo maanta waxay karsadaan aysan haysanin. alxamdulillah horta maanta intaanan la soo gaarnay hadda waxaan u keenay haaf bariis aan u keenay haaf sokor aan u keenay haaf bur aan u keenay 5 kiilo oo baasad dheer ah iyo caag saliid ah qof soo sadaqaysta khayr ilaaha si asagana bedel khayr qab ilaaha ugu bedelo dadka in si gaar ah oo gacan looga hayo u baahan yihiin bil waliba qofkii wax soo dari karo qofkii $50 soo dari karo qofkii $10 lacag sadaqa yaraan ma gasho $1 haba ilaaha ka dhigo. marka insha Allah umada muslimiinta gaar ahaan kuwa muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu jeedinayaa inay soo garab qabtaan ilmahan oo rajada ah oo insha Allah iyagana ilaahay wax waaye ha kuriyo ilaahana kulli insha Allah u maqan cunugan yar oo xanuunsan oo maanta qaybta dambe paralysis-ka ah asagan dhakhtar u baahan yahay daawo u baahan yahay kulli insha Allah in wadanka wax looga qaban karo in wax looga qaban karin anaga ma sheegi karno dhaqaatiirtii sheegi karaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay sheegi karo kadibna dhaqaatiir dadaalkooda wax walba ku imaan karaan. marka ducaa umada muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu jeedinayaa in ilmahan waxay cunaan iyo waxay cabaan ilaaha u maqane inay u dadaalaan. cunuga xanuunsan daawo u baahan yahay cunuga xanuunsan daawo u baahan yahay qofkii daaweynayna kulli insha Allah waa keen ma sha Allah horta aabaha sidaada u jeedaan horta cunugaas asagaas dhabta uga haayo maanta dib magaalka oo galaayo cunugii oo ku dhagano wax waaye inuu magaalka gal ma ka soo shaqeysan karo hawarta markay joogtay ilaaha u naxariisto ilmaha hooyada markay joogtay waa magaalkii oo galaa u soo shaqeynay waxay cunaan oo keenay hadda maanta ma dhaqaaqi karo waa cunuga dhabtiisa saaran waa cunug 4 bilood jiro waa cunug sanad jiro ma ahan waa cunug 4 bilood jiro waa baahanahay ma yaqaano waa dherganahay ma yaqaano maanta waxa la soo waayay wax ma lahan caano ma lahan ma jirto. marka wax hadii wax la waayay hadii wax la helo waxba u baahan yahay. marka cunugaana hadda khayr ilaaha siiyo maamada dhimatay ilmaha hooyadooda walaasheeda ilmaha wareertooda hadda kulli nuujisa cunugan marka iyadana qof joogto oo maalintii guriga joogto ma aha subaxii waa baxda shaqay aada habeenkii marka imaadey nuujisa cunugan ay nuujisa marka aabihiina maalintii oo kor fadhiyayo asagana masaasidii oo saas afka ugu haya. marka dadka sadaqadan soo baxsadeen waxaan leeyahay khayr ilaaha siiyo muraadkooda ilaaha u saqiro meeshay ka soo bixiyaan bedel khayr qab ilaaha ugu bedelo insha Allah anagana kama daali doono dadkan masaakiinta inaan caawino inaan garab istaagno saanan u daw taagnaa doona insha Allah dadka muxsiniinta ah oo maanta sadaqa jecel saana ugu soo gudbi doona insha Allah.